safiirka dalka Imaaraadka u fadhiya Somaliland Baasha Cawil iyo mas'uuliyiinta gobolka Saaxil ayaa galabta garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Berbera waxa ay ku soo dhaweeyeen wafdi sare oo ka socday dalkaasi Imaaraadka Carabta oo hogaaminayay sarkaal sare oo la yiraahdo Maxamed Kiti. wafdigan ayaa sida ay mas'uuliyiintu sheegeen waxa ay kormeeri doonaan mashaariicda kala duwan ee dalka Imaaraadka u fidiyo dalka Somaliland oo ka mid yahay mashruuca ugu weyn ee dhinaca biyagelinta magaalada Hargeysa ee Xunbaweyne. dabcan sidoo kale waxa ay eegi doonaan dhawaanta markii ay ka qayb qaateen taakulantii loo geystay qaybo kamid ah gobolada Somaliland oo ay abaar saameeyeen. ugu horreynna waxa halkaasi faahfaahin ka bixiyay wafdigan ujeedada u yimid xilligan Somaliland safiirka Somaliland u fadhiya dalkaasi Imaaraadka Carabta Baasha Cawil. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. marka hore waxaan halkan jeclahay inuu mahad celiyo maamulka gobolka oo ugu horeeya Barasaabko oo runtii si wacan u soo dhaweeyay wafdigan ka socda dalka Imaaraadka Carabta. wafdigan maanta inoo yimi waxa ay qorshahoodu yahay in laba cisho joogan dalka waxaana ay u socdaan inay indheeyaan gurmadkii dhawaan dawladda Imaaraadku ay ugu fidisay dadkii ku abaaraysnaa Somaliland. waxa kale oo muddada ay joogaan wafdigu eegi doonaan mashaariicda ay dawladda Imaaraadku ka wado dalka Somaliland. runtiina arrintan waxay muujinaysaa xiriirka soo jireenka ah ee walaaltinimo ee ka dhaxeeya dadka reer Somaliland iyo dawladda Imaaraadka iyo shacabka Imaaraadka. waxaan mar kale anigoo ku hadlaya magaca shacabka Imaaraadka iyo magaca afka madaxweynaha uga mahad celinaya dawladda Imaaraadka oo runtii noqotay dad walaalaha oo isgarab taaga shacabka reer Somaliland markasta ay u baahdaan. sidoo kale isna waxa ka hadlay aadna u soo dhaweeyay Barasaabka gobolka Saaxil Fahmi Cabdibidaar. ساعة سفير هذه وقت قاعد ودرنتي أد بن تقول سولوينا قرر في عنا نلقيتين وقت في عنا نلقيتين إذا إسرها وش أسعتان بوح هذا لنا هاي دعم الفرق سولوي درنتي ديارنا وحنونا هاي وعلى وحي قبل هنا نقص سنة نخصيه إن نفضي دينه أنا يلقى بنو ما على مش أسعتان نادي رعنو يجانا رنتي سلنا جالسين وحنجعلنا رنتي ساسلات إن شاء الله تعالى يسرقنا. السلام عليكم ورحمة الله.